inta adduunka joogto wax walba waa arkay. maanta waxaan ka hadlaynaa dhacdo yar, mid yarna ma ahane dhacdo oo qofku inuu maqlo layaab ku noqonayso. oday 104 sano jir ah oo saynisyahan ah oo lagu magacaabo David Goddard ayaa waxa uu dalbaday in la dilo maadaama uu dhiman waayo. wuxuu dhahay maadaama aan dhiman waayo naftaha laga jaro, nolol waa haystaa, adduunya waa haystaa, wax iga maqan malaha, naftaha la dhaafiyo. ciddii waa la yaabay, saas miyaha okay nin maxaa isku dilay caafimaad haysatahay maasha Allah, waana da'dan kaama muuqatay, waa nin shaqaysta tahay oo internet waxba samaysto. markaasuu yiri nafsadeeda anaa xuquuq leh, waxaa rabaa in kow laga siiyo. ururka xuquuqda dooda u tegay, arrintiisa u sheegtay, way ka aqbaleen. waxaan saas miyaha ninka marka Australian waaye oo saynisyahan ah, wuxuu aniga naftu waa nacay, kow ha laga sii waaba dhimo waayo camal, anaa inaan sii joogo 104 sano inaan sii joogo qaado waayo. saas miya okay, go-aanaa la gaaray, la soo wada waxaa la keenay Switzerland, xafladaa loo dhigay, kaala arag qamro wax walba oo jeclaay oo dalbada, maadaama ay caaba ugu dambaysa nolosha. waa la raaxaystay baashaal kadib iyo raaxa kadib, ninkii soo faraxsan oo qoslaayo wax lagu daray cirbad oo nafta si fudud dadka ugu qaadayso. ninkii saaxiibka ahay odayga waa siibtay, waa baktiyey meeshii ku siibtay Switzerland. sababtoo asaana dalbad wuxuu yiri qofkii ugu da' amba iga yar wuxuu xaq u leeyahay inuu dhimasho dalbado waqtiga ay ku habboon. sidaasuu kugu sheegay wariyaasha. arrintan waxay ka dhacday maanta oo 10 May 2018 dalka Switzerland. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni layaabka. fadlan haddaa ku cusubtaa kanaalka subscribe gambalaalkan ha iloobin.